Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba ku soo dhowaada sheeko ka mid a sheeko libaaxyadii aan halkan idinkala socodsiin jiray. Sheekaduna markan waa mid qosol iyo naxdin bale ku soo dhowaada. Waana mid ka mid a sheekooyinkeenii aynu ugu magac darnay markee ayay kugu darnayd ee aad libaax la kulantay. Waxa uu yidhi ninka sheekadan ka sheekaynaya waxay ahayd xilligii ay Soomaalidii libaaxu ay cadowga ahaayeen. Waxa uu yidhi waxaan ka carraabay meel tuulo ah. Waxaan reerkayga u sii qaaday waxoogaa sonkor ah. Xilligu waa xilliga fiidcawlka loo yaqaano ayaan u dhaqaajiyey si aan reerkayga oo meel miyiga degan aan ugu carraabo. Waxa uu yidhi waxaan mirqaansanahay oo waxaan ka sii dhergay caleenta qadhaadh ay Soomaalidu sida habaaran u cunto ee la yidhaaha qaadka oo badh baan sitaa oon isleeyahay baad socodka ku sii cunti ayuu yidhi ninkani. Waxaan sitaayoo kale budh falaas ama darmuus iyo toosh. Waxaan ku dhacay jid yar oo xagga reerkayga loo sii maro. Wuxuu yidhi habeenkiina wuu sii madoobaaday. Waxaan sii socdaba waxaan dareemay shanqadh iyo hiid amba culays oo dadka libaaxa yaqaanaa waxay yidhaaheen libaaxu maruu ku daba socdo amba uu ku garab socdo uu kugu soo dhowaaday ee aadan arkayn. Waxaa la dareemaa culays iyo hiid iyo shanqadh iyo cabsasho adigoon arkayn ayaa la dareemaa. Waxaan xasuustay ayuu yidhi inaan marayo meelihii libaaxa caanka ku ahayd. Waxa uu show libaaxyo ayaa i daba socda. Libaaxa kiisa aan dadqaadka hayna dadka wuu iska daba galaa isagoo marmar hor fadhiista marmarna dhinac gala oo doonaya inuu shanqadhiya wax ula galo. Hadduu doonana ku damci karaa oo ku soo weerari karaa. Haddaba wuxuu yidhi ninkani anigoo iska shakisan oo aan arag libaaxa laakiin shanqadhiisa iyo hiidkiisa biifta sankiisu ay haysato laakiin aan iska mirqaansanahay oo aan qaadkii socodka ku cunayo ayaa ileen waxa ay hor fadhiistay faha libaaxa. Tooshkii yaraa ayaan sitaa oo aan hortayda uun ku hayo. Libaaxii si uu iga naxiyo waxa uu soo galay geed yar oo hortayda ah laakiin dhinac iga yar xigta si aanu tooshkuna u qaban ayuu dhan iga fadhiistay. Marka aan ag marayo ayuu soo riixay buu yidhi ninkani laan yar ama geed yar faraqiisa oo aan ag marayay. Kadib laantii ayaa igu dhacday. Wuxuu yidhi aniga markaa ayaa miyir ugu dambaysay. Naxdin ayaan kala qaboobay oo waxaan u qaatay waxaan igu dul dhacay inuu yahay libaaxii oo i fuulayba oo i cunaya. Waxaan ku dhuftay qaylo. Waxaan dhulka igaga dhacday tooshkii oo ahaa wixii keliya ahaa ee libaaxu igaga baqanayay iyo bacdii sonkorta ku jirtay. Waxaa gacantayda ku soo hadhay budhkii iyo falaastii. Intaa kadib aniga oo qaylinaya oo isku haysta inuu libaaxu cunay ayaan cararay. Waxaan isla dhacayaa budhkii iyo falaastii oo mar hore jajabtay. Qabta sidaan ugu hayay amba qowqowda uga hayay. Ileen waan naxay oo isma ogin meelaan marayo. Gebigayguba wuxuu yidhi waxaan noqday qallaf iyo sisi. Libaaxii Ilaahay waa iga kaxeeyey oo dib uma arag. Laakiin anigii ayaa aan fariir qaaday waddadii ayaan sii qaaday. Anigoo isla dhacaya falaastii iyo budhkii. Dad ama reer iga horreeyey ayaa maqlay qayladaydii isagoo oo iga soo hor yaacay. Wuxuu yidhi dadkii ayaa ii yimid. Waa la yimid dadkii ayaa yaabay oo waan qaylinayaa uun. Gebigaygu aan fariir ayaan qaaday. Biyeeyo cunto ayaa lay keenay. Isdeji baa la yidhi. Waan fadhiistay. Wuxuu yidhi waan qaylinayaa oo waxaan u haystaa bahalkii inuu cunay gebigayguba oo aanan noolaynba. Laakiin saacado kadib ayaan miirsaday. Waxaan ogaaday inaan noolahay oo aanan cunin. Markaa ayaan dadkii uga sheekeeyey wixii dhacay. Dadkiina way yaabeen. Dib ayaa lay raacay. Alaabtaydii oo meeshii taale libaaxuna iskaga tegey ayaan laga soo qaaday buu yidhi. Waa mid ka mid ah dadkeena Soomaalida hore oo inooga sheekeeyey mar ka mid ah mararkii ugu naxdinta badnayd ee libaaxi sarkaan. Waa sheeko qosol iyo naxdinba leh. Waad mahadsantihiin dhammaantiin. Kanaalka subscribe saara ku soo biira oo gambeelka furo si aad u noqoto qofka ugu horreeya ee muuqaalka aan soo gelin soo gaaro. Dhammaantiin waan salaamay.